وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي قبيل كديدالي بالمدى دونالي كان قبيل كديدالي بدني مدى دونالي كان ديدي الهوشتالي كان لعبك دور سنو وحكستا وتقاتو وديك شري لحدي سالي waxaan waqti siinayaa oo aan jeclahay inuu halkan yimaado isaguna erey ka yiraahdo siyaasi kamida siyaasiyiinta Soomaalida oo isla markaana kamida odayaasha magaalada ama dalkan aynu joognay ee Saudi Arabia oo aan jeclahay inuu kelmado uu ku soo dhaweynayo boqor Burhaan boqor Muuse boqor Ismaan oo isaguna halkan ka yiraahdo وحلدبان عبد الله الراقي عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم قد سلامتين dhammaantiin gaar ahaan raggii soo agaasimay xafladan sharafta leh soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayo boqor Burhaan boqor Muuse aad baan ugu mahadcelinaynaa boqorkana waan soo dhaweynaynaa xogaa anigu ammaanta badneed waa yara ka bedelanahay marba haddii la yiri siyaasi meelaha wax la yihiin dadku way wada garanayaan boqor waa ku soo dhaweynaynaa ahlan wasahlan dalacsiinta hadda boqor Soomaaliyeed lagu dalacsiiyana insha Allah inaad ka shaqeydo adigoo isimadii iyo boqoradii kale ka soo dhameysana waan rajaynaynaa inteena kuma dalacsiin karna laakiin waa ku soo dhaweyn karnaa kartidaas boqorada kale aad ku shirisid oo aad ka dhameysid Soomaalinimadii aad ku wajahdid adiga laga rabaa inaad dhameyn kartidna waan rajaynayaa inuu meelo badan oo ka hadlaysid baan aan fiirsaday waxaan ku imaan kartaa sida aan qiyaasayo xaaladda iyo wadciga dalkeenni dadkeenni shacbigeenni goboladeenni deegaamadeenni dhibaatada ka jirta nagu waa dhaqanahay jaaliyad baan nahay ma ihin diaspora ma ihin dad Soomaali ah oo xoogsata ah oo islaami ah oo xadaari ah baan ku joognaa halkan dadka marka islaamiga oo Soomaaliga oo xadaariga waxa dhulka ka dhacaya way dhibayaan marka dhibaatadaas nin aan kala hadalno ama boqor ha ahaato ama mas'uul kale ha ahaade oo wixii aan anagu qabno aan ku canaanan waan doonaynay adiga marka waan ku soo dhaweynaynaa waxa jira wax qabadkoodana waan ugu canaananaynaa waxaan leenahay boqor kaalinta odayaasha dhaqanka boqorada siyaasiyiinta wadankii jooga baahida wadankii ka jirta waxba kama idna qaban wax badan aad soo qabateen laakiin ma adnaan dhameystirin haddana wajiga dalku galay waxaad moodaa inaad ka gaabinaysiin marka aniga waxaan kugu guubaabin lahaa bacdi soo dhaweynta inaad ka shaqaysid dalkii qaybaha uu kala yahay gobolada uu kala yahay xaafadaha loo kala xirxirtay siyaasiyiinta kala xirxiratay haddii aad tihiin boqoradii ugaasiyadii dadkii dhaqanka metelayay inaad dib u ururisid
oo adiga hadda nala joogay waxaan ku faraynaa inaad ururisid boqorradii kale inaad ururisid ugaasyadii inaad midowdaan si calaa aqal aan u helno dad dhaqankii iyo soomaalinimadii iyo deegaankii iyo sharaftii soo celiyay aad baan kuu soo dhawaynaynaa waana ku faraynaa inaad ka shaqaysid midaynta siyaasiyiinta ma midayn kartiinoo xaafaday kala xirteen laakiin dhaqanka salaadiinta odayaasha waxgaradka cuqaasha dad badan aad helaysiineen oo bannaanka idinka jooga oo maaragta aan ku jirin waxa la kala qaybinayay waxa la kala siyaasadaynayeen xaalad khatara in waddanku ku jiraan dareemayna maadaama aan dareemayno in xaalad khatara waddanku ku jiro badbaadadiisa xibin weyn inaad ka tihiin oo dadka aad amri kartiin baan qiyaasayna adiga marka waad nala joogtaa gaar ahaan kuma laalaabanaya gaar ahaan waxaan ku faraynaa midnimada midaynta salaadiinta Soomaaliyeed magacyo badan aan maqalnaa marka boqorka daaroon odayaasha hawiye odayaal dhaqameedka reer hebel kuwa marka waxaasoo dhan waxaa ka fiican inaad boqorrada Soomaaliyeed oo hebel oo boqorka u sii yahay oo madaxda u yahay oo Soomaalinimadii iyo goboleed iyo nabadii iyo deegaankii iyo midnimadii ka shaqeynay waan jeclaan lahayn marka adigoo mahadsan raalina iga ahaada magaca aan ku fadhino oo Soomaaliyeed waxaan kugu faraynaa midnimada Soomaaliya nabadgelyada Soomaaliya ururinta Soomaaliya isu tagga Soomaaliya hadaad cid wax ka sugtaan waxaan u maleynaa qola aan sugaynaa waddanka wax ku leh qola aan sugayn baa waddanka wax ku leh dadaal dheeraad aan ku faraynaa waana mahadsan tahay soona dhawow dalacsiintana maalinta aad isu keento isimadii annagu qoladii ugu horreysay oo ku dhawaaqdaan haddii ilaahay yiraahdo waad midaysan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي